soo dhawaada saaxiibayaal iyo daawadayaal bini'aadamku waxay ka soo baxeen biyaha hoostooda aynu si qoto dheer u dhex galno mala'awaalka oo aynu baarno waxaa dhici kara haddii aadanuhu u xubsiibtaan inay ku noolaadaan biyaha hoostooda bal qiyaas mustaqbalka halka noocyada marka ay dhulka qabsadeen oo ay gaareen xididada ay hadda u jeesteen mawjadaha hoostooda maxay ku qaadanaysaa bini'aadamku si ay ugu koraan moolka badda halkaasoo cadaadisku aad ugu weyn yahay iftiinku yar yahay la qabsi kasta waa in si fiican loo hagaajiyaa si loo badbaado socdaalkeennu wuxuu ka bilaabanayaa in aan ka fikirno dib u haweynta xag jirka ah ee ku saabsan qalabka noolaha aynu dhiirigelino kala duwanaanshaha yaabka leh ee makhluuqa badda waxaan ku qiyaasnaa jirka bini'aadamka oo dib loo qaabeeyey oo laga soo bilaabay dhulka si aad u bilowdo tixgeli caqabadaha ku saabsan neefsashada biyaha hoostooda si ka duwan fudeedka xamashka laga helo kalluunka bini'aadamkeennu cusub ee biyaha waa inuu helaa xal wax ku ool ah annaga oo ka soo jiidanayna naasleyda badda sida dolfiiniska oo caan ku ah awooddooda haynta neefta ee cajiibka ah iyo isticmaalka hufan ee oksijiinka bini'aadamka mala'awaalka ah ayaa laga yaabaa in ay ku ciyaaraan dalool madaxa korkiisa ah la qabsigani waxa uu oggolaanayaa in si degdeg ah loo helo neefsasho degdeg ah oo qoto dheer ah taasoo awood u siinaysa quusitaanka fidsan ee hirarka hoostooda waxa suuragal ah in 8 ilaa 10 daqiiqo iyaga oo la tartamaya awooddooda naasleyda badda hase yeeshee badbaadada biyaha hoostooda waxay u baahan tahay wax ka badan neefsashada oo keliya cadaadiska burburinta moolka badda halkaas oo 10 mitir kasta uu ku daro miisaanka jawiga kale wuxuu u baahan yahay qaab dhismeed adag halka nafiska feeraha dabacsan ee nibiriga oo qani ku ah carjawda oo awood u leh inuu isku dhejiyo ayaa caddaynaya mid qiimo leh markaad amaahato sifadan bini'aadamku wuxuu helayaa ka hortagga burotoomka iyo xanuunka niyadjabka taasoo u oggolaanaysa inay u adkaystaan darafyada cadaadiska badda hoose iyaga oo aan waxyeelo lahayn awoodda dawaasha ayaa ah sifo kale oo lama huraan ah bal qiyaas bini'aadamka biyaha hoostooda oo ku qalabaysan jid qaabaysan oo torobiidda ah oo la mid ah shaarka buluugga naqshad yaraynaysa jiidashada oo kordhisa xawaaraha iyaga oo ku dhex marinaya biyaha xawaare dhan 19 kilomitir saacaddii la qabsigan keliya ma wanaajinaya awoodda ay si dhaqsaha leh ugu dhex maraan mawjadaha badda laakiin sidoo kale waxa ay sahlaysaa fuulitaanka degdega ah ee dusha sare taas oo muhiim u ah in ay ka baxsadaan ugaarsiga ama galaangalka hawada sare badbaadinta moolka badweynta waxay sidoo kale u baahan tahay in si fiican loo maareeyo sawirka iyo isgaarsiinta waxaa dhiirigeliyey karamosferis iyo squid bini'aadamku wuxuu yeelan karaa awood ku beddela midabka maqaarka oo uu soo saaro qaababka bulumiiniska unugyada gaarka ah ee midweynta oo ay gacanta ku hayaan foosha murqaha waxay bixiyaan habab badan oo lagu dhex milmayo deegaanka calaamadaynta dadka kale ama ogaadka dhalanaysa la qabsiga noocan ah waxa uu bini'aadamkeennu biyaha hoostooda siinayaa awood badbaado oo la xoojiyey taasoo u sahlaysa in ay maraan moolka mugdiga ah iyaga oo ka baxsanaya ugaarsadayaasha ama la xidhiira dadka kale ee deggan badda marka aynu dib u qiyaasno qaabka bini'aadamka ee nolosha biyaha hoostooda waxay dhaafsiisan tahay la qabsiga jirka oo ay ku jiraan kor u qaadidda dareenka maqnaanshaha iftiinka qoraxdu waa in ay la qabsataa xaaladaha iftiinka hooseeya ee ku baahsan badda moolka dheer mala'awaalkeennu bini'aadamka ah ee biyaha hoostooda waxaa laga yaabaa inay yeeshaan indho waaweyn oo xasaasi ah oo awood u leh inay ogaadaan calaamadaha bayoluministka ama dhaqdhaqaaqa daciifka ah ee mugdiga sidoo kale xubnaha dareenka ayaa u kobcin kara si ay u ogaadaan isbeddelada daahsoon ee cadaadiska heerkulka iyo kiimikooyinka iyagoo siinaya fahan dhammaystiran oo ku saabsan deegaanka biyaha hoostooda socdaalka si aad u noqoto noocyada biyaha ayaa sidoo kale u baahan in dib loo eego hababka dheefshiidka kiimikada badda moolka dheer halkaasoo ilaa cuntadu ay aad ugu yar yihiin ilaalinta tamartuna ay tahay muhiimadda ugu weyn bini'aadamkeennu biyaha ku nool waxaa laga yaabaa inuu la qabsado inuu ku tiirsanaado kaydinta tamarta iyo ka faa'iidaysiga sifooyinka kalluunka badda hoostiisa ku jira ee loo yaqaan awoodda ay ugu noolaan karaan nafaqooyinka ugu yar oo ay ku waaraan waqti dheer cunto la'aan waxay ku wargelin karaan la qabsiga hagaajinta isticmaalka tamarta iyo kaydinta jirka dhexdiisa si kastaba ha ahaatee dariiqa horumarka biyaha hoostooda waxaa ka buuxo
caqabado iyo su'aalo aan jawaab loo helin. La qabsiga nidaamka deegaanka ee baaxadda leh ee kala duwan ee badda waxaa ku lug leedahay ka gudubka caqabadaha noolaha iyo khataraha deegaanka. Ka beddelka neefsashada hawada biyaha hoostooda waxay u baahan tahay dib u haweyn dhammaystiran oo habdhiska neefsashada sanbabada ilaa hababka kaydinta oksijiinka si hufan oo looga soo saaro biyaha oo la mid ah shaqada xaniinyaha, laakiin loo xoojiyey jidhka bini'aadamka ayaa weli ah caqabadaha adag oo weli lagama maarmaanka u ah in laga gudbo. Intaa waxaa dheer, ugubka nolosha biyaha hoostooda waxay u baahan tahay la qabsiga bulshada iyo dhaqanka sida naasleyda badda iyo makhluuqa badda moolka dheer ee dhex mara qaababka bulsheed ee kakan iyo shabakada isgaarsiinta bini'aadamkeenu. Biyuhu waxaa laga yaabaa inuu horumariyo qaababka casriga ee ugaarsiga, iskaashiga caadooyinka lamaanaha iyo dhaqamada dhaqameed ee ay la jaanqaadayaan nolosha hirarka hoostooda. La qabsiga habdhaqankani waxa uu ugub dhexaad u yahay saamaynta bulshooyinka isku xidhan oo awood u leh in ay kor u koraan jawiga biyaha hoostooda ee adag iyo inta badan colaadaha. Fikradda ah in bini'aadamku u kobcayo si ay u noolaadaan biyaha hoostooda waxay albaabka u furayaan adduun biology mala'awaal ah iyo suurtagalnimada koriinka. Waxaa dhiirigelinaynaa la qabsiga cajiibka ah ee makhluuqa badda laga bilaabo dolphiniska, nibiriga iyo squidka iyo shaarka. Waxaan u malaynaynaa mustaqbalka halkaas oo bini'aadamku uu soo dhoweynayo moolka badda sida xuduud cusub iyada oo loo adeegsanayo isku dhafka hal-abuurnimada noolaha, horumarinta tiknoolajiyadda iyo la qabsiga deegaanka. Bini'aadamka mala'awaalka ah ee biyaha hoostooda wuxuu ka kooban yahay adkaysiga iyo la qabsiga kaas oo qeexaya raadinta noocyada iyo sahminta iyo badbaadada dhulka ugu daahsoon dhulka. Marka aan sii wadno sahminta iyo fahamka kakanaanta habnololeedka badweynta, xaaladaha mala'awaalka ah waxay soo bandhigayaan muuqaal yaab leh oo ku saabsan horumarka imaan kara ee bini'aadamka sida dhiigmada badda.